shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixisoo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadaay dhalinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guush ay bilaabatay badan ayaa marka cabiraadada dhaqaalaha iyo horumarka dhaqaalaha la sameeyo oo waliba dhinaca dadka la xiriira ayaan wadamo badan aad iyo aad u badan ayaan ka sareynaa ka horeynaa sida isticmaalka telefoonka mobilka oo kale bangiyadeena sida u shaqeeyaan xawaaladeena sida fast yihiin ay maxaan ku u dhaqaaqaan wax badan wixii amni darrada iyo wax nooga xirnaayna waxna waa noo suurtagal insha Allah inta kalena waa noo suurtagelaysaa waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynaa waana ka adkaanaynaa dhinac kastoo ama daacish ahaadeeno oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadaayay dadka reer Puntland iyo dowlad goboleedka Puntland ay ku jiraan oo runtii shaqo amaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shabaab ka soo qabteen intaba shacabka shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixisoo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadaay dhalinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guush ay bilaabatay waa horaan u dhahay argagixisadu waa malaay ku nool meel yaro waaska yaro biyo ah meesha isku dhex dagaaladaya waaskada inta daarka laga bixiyo biyuhu ay ka daataan malaygu waaska everon biyo ku jira malaygu kuma noolaan karo dadkanaga fahamkiisa maanta meesha uu joogo uu gaaray waaskadiyo biyihii kasii dhammaanayaan ay kasii socdaan waaye inta ku dhimanna waa ka dhammaan doontaa diyaaliina cawo iyo maalin dhallinyaradeenna ciidamada qalabka sida ee kala duwan saacadaas aan meesha fadhino buraha laga hadlayo bariyahan oo dhan ee ku yaala Puntland ilaa meel la yiraahdo beero yabaal oo gobolka Hiiraan ka tirsan ilaa maxaan ku yiraahdaa Sowad oo muxuu ahay shabeellada dhexe keen meel la yiraahdo agagaarka muxuu ahay xawaadle ee webiga agtiisa ilaa maxaan ku yiraahdaa Baay iyo Bakool iyo maxaan ku yiraahdaa Jubbaland gaarsi meel aanan saacada aan joogno askari Soomaaliyeed aanu kula diriraynin cadowga argagixisada ma jirto ama xabad ha socoto ama ha hor fadhiyo askariya qoraxda aad aragtay taagan banaanka oo la taagan oo dagaal kula jira argagixisada dagaalka noocaas ee naftii horanimada ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa mas'uulka ah ayaa qaadaan ayaga wadaan haddii marka wiilkii meesha ku soo dhaawacmay meel lagu daaweeyo aanu haysanin oo xataa dadkiisu haddii ay wax iska dhaqan yihiin dowladda inta awoodi wayso dadkiisu ay rabaan inay daaweeyaan aanay haynin meel ay ku daaweeyaan in dibad loola cararo ay tahay oo dowladdu haddii ay xataa qarash bixinaysaa inay dibadda qof u qaado ay tahay culayskeeda intuu leeyahay qofkaas visa loo sameeyo laga soo dhaco dowlad hebel lala hadlo inta laga hadlo ay gaarto maanta waa ka duwan tahay isbitaalada private-ka magaalada ku yaala in badan oo kamid ah maanta waxaa jiifo ciidamadaas aan sheegay geesiyaasha qaarkooda jiifa oo lagu daaweynaya kuwa private-ka waay isbitaal dowladdu leedahay xoog dalka Soomaaliyeed iskale intuu qaado waa joogtaa laakiin marka qaarkood ama waa ka badanay tiradii ama qalabka iyo wixii oo loo baahnaayaanu isbitaalkii dowladda ee ciidamada aanu haysan sidaas daraadeed isbitaalada private isbitaalka Erdogan isbitaaladan dhan private-ka oo dhan yaa la geeyaa oo lagu haya haddaanu isbitaalka private-ka jirin xagee la geey lahaa dowladdu isbitaaladaas lacagaysiisa waa bixisaa daawadooda dowladda bixiso laakiin isbitaalada intooda badan waxay dowladda u sameeyaan askarigaas discount ay u sameeyaan lacag aad iyo aad u badan ayay cafiyaan oo u badan faa'iidadii ama wixii ay heli lahaayeen ayagu in badan oo kamid isbitaalada private-ka waxay dowladdu ku soo dalacaan
waxa ku baxaya qofkan meesha la soo seexiyey sariirta caafimaadka qofkan uu adeegayo waxyaabo lamid ah faa'iido inaan inta badan lagama sameeyo muxuu ahay dhallinyaradeena muxuu askarta qaar dowladda bixiso qaar dadkooda la baxa Allah khayr siiya oo naga awoodna annaga bixinayna dhaha marka horta caafimaadku asalkiisaba waa saas qof jiran horumarna ma galo gargaar kale iyo wanaag kalena ma samayn karo maskaxdiisuna ma degana maxaan ku raadaay waa qof mujtamaci wixii uu ku lahay aanay ka helin soo dowladda iyo mujtamaca guud ahaan waxay faa'iido ka helayaan qofka caafimaadka qaba qofka caafimaadka qaba ee ordaya ee ilmihiisa u xamaalanaya ee inta u waxaynaya ee dowladda garab istaagaya cashuurta bixinaya waxaa soo haray intaas kadib walaalayaal dadka intii awoodo meelaa loo helay isbitaallo baraavidaa loo helay dadka inta aan awoodin maxaa u talaa mas-uuliyadda ugu horeysa ee dadka saaran dowladda saaran taas waaye dadka inta hooyada xanuunsan ama cunugu ka xanuunsan yahay ee aanan awoodin in ay maxaan ku rahdaa $5 oo muxuu ahay dhakhtarka booqashadiisa ama $10 dhakhtarka booqashadiisa iska bixiso ee aanan awoodin in ay critical hadduu yahay isbitaal ay seex aanan awoodin maxaa u talaa waaye mas'alada dowladda haysata inay ka jawaabtaan rabtaas waa ka jawaabtay waati wasiirka iyo muxuu ahay doctorkii agaasima isbitaalka halkan ka sheegayeen in 6 hospitaal laga sameeyo 6 dowlad goboleed oo referal ah isbitaal weyn oo yani degmooyinka meelaha iyo dadka wax looga qaban waayo meesha xamar loola soo carari lahaa in muxuu ahay magaalo madaxda dowlad goboleedkaas loola cararo ayadaa u dhow la geeyo oo isbitaal dowladdu ay leedahayna uu yahay dowladdu kaasay ka shaqaysaa national transformation plankeedu qayb ka yahay wayna dhaqan gelaysaa ilaahay idankiis waxay ayada awoodo iyo waxay kaalmo magaca dowladnimada ku raadisaba dowlad goboleed kasta hal isbitaal oo weyn oo sidaas inuu yeesho waa ka shaqaynaynaa insha allah waxaa kaloo ogtihiin tacliimta sidaas oo kale tacliimta soomaaliya maanta waxay ka arda badan tahay waagii dowladda joogtay ardadii iskuulaadka aadaysay arday aad iyo aad uga tiro badana maanta iskuulaadka aado iskuulaadkaasi dabcan intooda badan waa private in badanoo ka midana samafal iyo hay-ada samafal ahay jiray inkastoo hadda hay-adii ay soo yaraanayaan oo markii dalka xoogaa nabadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wixii xoogaa ay kor u soo baxeen hay-adaha samafalkii wayse samafalkana beryaan waabad aragteen oo waa si ciriidhu sii noqonaya laakiin dowladdu iskuulaadka dib inay u furto agba intii ay karto 10 kun oo macallin dowladdu inay shaqaalayso macallin kastana saacad walba oo waxbarasho ah ugu yaraan 40 arday inuu hor istaago oo hortaagan yahay 40 arday oo wax u dhigaayo oo ah ardada ilmaha aan sheegay ee hooyadaasi aanay u awoodin in ay iskoolka bisha aakhirkeeda $10 oo fiiga la iska rabo geey weyde ee jidka ku cayaara ee carrada jidka ku beega waaye ardada maxaan ku raad loogu talagalay iskuulaad dowladda macallimiinta ay waxaysay iskuulaadkii in badan oo kamid ah dayactirtay iskuulaadkii ay hadda dowladda ka shaqeynaysaa inay koronto helaan iskuulku inuu koronto helo oo maalintiina koronto wuxuu baa habeenkiina lagu dhigto si dadka inta ugu badani ay fursad u heli karto dowladdu waxay ka shaqeysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHyo iyo maxaan ku rahdaa kiliinikoyin yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sano la soo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH-kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallaahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo oo wixii daawo meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabadh foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay wadaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaal maaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helayo dowladdu intii karaankeeda ama dhaqaale ayadu ay canshuurteeda ka bixiso ama magaca dowladnimada ha ku raadiso ha ku keentee ma aha public bas dowladda private waa ka shaqeysaa oo hadda shirkadaha مثلا adeega korontada magaalada Muqdisho bixiyo kale adeeg fiican ay bixiyaan adeeg loo baahan yahay bixiyaan
bas waxoogaa yar qaali waaye dadka caadiga waa ku qaali wax yar meesha ay gaareen waa dhimeen meesha ay joogaanna kama sii dhimi karaan dowladdu kabay u raadisay maalgelin caalami ah in loo helo oo aan dayn ahayn oo deeq ah oo qalab dheeri ah iyo awood dheeri ah lagu siiyo si meeshii ay qiimaha ay ka hoos mari waayeen ay uga hoos mariyaan hadda oo loo helo korontada hadda aan haysanaa waa koronto isticmaala iftiin maxaan ku rahdaa sidaan oo kale qaboojin isbitaallada guryaha waxa waa noo anfacdaa laakiin koronto warshada kicin karta ma haysano waxaan u baahannahay waa koronto warshada kicin karta oo daari karta warshad kicisa oo qiimo macquula ku kiciso warshadu waxay soo saaraysay ay suuqa ay ka noqon karaan competitive kuwa tartami kara ay ka noqon karaan aanay ahayn kuwa qaali oo aan laga bixi karin waxaasoo dhan iyo maxaan ku rahdaa afkaartaas waaweyn ayaa dowladdu ay ka shaqaysaa mashruuca waxaan qabi jirnay qorshaha la yiraahdo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano waxaa loo bedelay hadda qorshaha transformation maxaa la yiraahdaa isbedelka ma la yiraahdaa national transformation plan meeshii national development plan uu ka ahay isbedelaan rabnaa wax walba dalkani muddo 20 sano ah oo u dambeysay soo kabasho ku jiray marba heer soo maro 10 sano ugu horeysay 10 sano dagaalo sokeeyay dhib badan ay ahayd laakiin 20 sano ugu dambeysay khaasatan 12 13 sano ugu dambeysay soo kabasho xoog leh ayaa dalka ka socoto oo waxaan maanta aan joogna iskama soo dhalan hal meel waxay ahayd process socdaya inta maanta maray waana sii soconaya dal yar hore inuu sii socdaa la rabaa soo kabashadaasi marka waxyaabay u baahan tahay qaar ka mid halkaana looga dhawaajiyo waa shuruuc sharci ilaalinayo difaacayo inay leedahay soo kabashada hadday tahay caafimaad hadday tahay warshad hadday tahay bangi hadday tahay ganacsi kale dhammaan waxay u baahan yihiin dalkeenna sida haddaatee walaalkan halkan uga dhawaajiyey inta badan habnololeedkeennii wax walba waa taabanaya dhaqaalahaasaan u tacbaynu taabanayaa tacliinta u taabanayaa sidaan u noolnahay u taabanayaa habnololeedkeenna dhaqankaa u jira habnololeedkeenna ganacsiga marka la aado maxaa ka mid ahay gedisley hebel waa gedisley owr jar ah oo waaweyn oo wuxuu ka soo raacdeeyaa meel hebel suuqu keenaa waa gadaa markaasoo bariis iyo maxaan ku rahaa masage iyo galley iyo sokor iyo inta ku gado haddana qaadaa oo baadiyihii geeyaa markaasoo markuu intaas gado haddana owrtii ama dibidii ama warankii haddana soo gadaa oo soo qumiya haddana suuqa keena taas waa terminology saxda loo yaro waa gedisley ganacsatadeenna in badanoo ka mid ahay waa gedisley adduunyaduna gedisleynimada waxay ka timiday mar hore oo waxay gedisleynimadu waxay la suushay waagii la dhihi jiray muxuu ka dhiil caanahan ku siinayaaye dhiisha masaga iiga buuxi ama muxuu ahay kaba subagaan ku siinayaaye muxuu ahay shop maxaan ku yiraahdaa masaga ah ama galley isii la dhihi jiray barter systemkii gedisleynimadu taas ay daba socotaa ay ka mid tahay waa taas oo soo hormartaa gedisleyda noqotay gedisleytii maanta waa laga yimid maanta maalgashiyaa la joogaa